بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا magacayda waxaa la yidhahdaa anunbaa hooyadaaya. sidada ay ku saabsan tahay kolley warkeeda waa la hayaa. magaalada London baan joogay, waa inaan ka sheekeeyo balota sababa nasuulkii baa dee shay lagama maarmaana in laga sheekeeyo maxaa keenay. sida sugaantu ay sharci u leedahay in aan la iska odhan ay sababa keenaan. marka London baan deganaayo, inaanu saaxiib nahay baa adigu habeenkii dambe wuxuu ii sheegay annagu iska qayli jirro faris fadhiina. ayuu ii sheegay inay jirto islaam baa waddanka joogta magaalada London. waxay dhashay 4 wiil bay dhashay. 4taa wiil iyadaa ku tacabtay. waxaa laala wixii ay xoolo haysay iyo waxaa laala wixii ay xoog haysay inamadaasii gelisay. mar haddii aanu aabe jirin, iyadaa noqotay aabe iyo hooyo labadaba. wadaadkii dhalay way kala tageenoo markaa wadkii iyadu ku soo haray. marka caruurtii afatiinan mid walba magac bay bixiso, magacyo ay u hanweyn tahay oo ay jeceshay inay sidaa noqdaan bay u bixisay. mid waxay u bixisay guuleed, mid waxay u bixisay liibaan, mid waxay u bixisay mahad, mid waxay u bixisay asad. yacni waa magacyo ay hooyadu jeceshahay inamadeedu inay sidaa noqdaan. marka waxba kalamay hadhin, way korisay, waxbay bartay. cimrigeedii iyo quruxdeedii iyo tacabkeedii waxay gelisay inamada ilaa ay ku dulgabowday. waa fariinanoo mid waliba markuu maalintii 23 jir gaadhay kii u horreeyey ayuu kadinka ka baxay, dibna uguma soo noqon. kii labaad wuxuu isagoo 21 ayuu kadinka ka baxay. kii ku xigay isaga oo 19 ayuu kadinka ka baxay. kii u dambeeyana isagoo 17 jira ayuu kadinka ka baxay, dibna uguma soo noqon. xataa salaadna siday u baxeen warkooda ma hayso. marka waa la garanayaa hooyada haddii ilaahay ka dhigo kalgacalka hooyada iyo sida marka dambe dadka ay dhashaa badiba ay ugu abaalgudaan. in marka la muudsaday caji laga dhigay ee lagu tuntay ay dadka ay dhashay markay keligeed marka ay dee tahay iyadu qofka keligeed korinaya waan aabuhu joogin, way ku dul burburtaayoo hadhii habeen way soo jeedaa yaraantooda oo maray wax siiso iyo maray ilaaliso iyo maray saxaarada ka tirto. dabadeedna xaqaan la malayn karayn oo cidi sheegi karayn oo la qiimeyn karayn ayay yeelataa. marka hooyadaasi nasiib daradaasaa ku dhacdo 4tii wiil ay magacyadaa culculus ula baxday oo ay rajaynayso inay sidaa noqdaan. mid waliba maalintuu shinkiisii gaadhay ayuu kadinka ka baxay, dibna uguma soo noqon. marka aqalkii waa iyada iyo aqalku waa keligeed, waa aqal madow oo aan dhaqdhaqaaq ka jirin ilaa ubadku waa nuurka aqalkee. aqalku waa dam oo waa gudcur, wixii nuuri lahaa way ka tageen. aqalkaa madow bay dhex fadhidaa. inamadii salaan iyo jawaab iyo kalaam iyo war ay ka haysaa ma jiro. halkaasay fadhidaa. imika cad bay noqoto, waa gabowdayoo salaada dirqi bay ku tukataayoo markay tukataba waa u ducaysaa in ilaahay soo hadeeyo inamadeyda. dabeedna ninkaasi warkaasuu ii sheegay oo wuxuu yihi hooyadaasi halkaasay ku kadeedan tahay, tacabkaasaa soo maray. goblan maaha, 4 wiil bay dhashay. maantana 4tii wiil waa ka goblanoo waa waqtigii daynanka yar markuu shinkiisa gaadho dabeetana ay isla lumi jireen hablaha da'diisa ahee haddii ay ka dhigo uu hooyada kale uu yeelan jiray weeyi. marka inankii waxaan ku yidhi may tusaysaa ninkii warka ii sheegay guriga may geynaysaa? haway guri waanu ballanay oo gurigii baanu tagnay maalin maalmaha ka mida goor duhura. intaanaan tegin dadka haweenka deriska ah ee meelaha ka dhadhoway ay yaqaaniin waa ku dhaga hadlaanoo waxay yidhaahdaan mar walba oo wiilashaadii xagay qabteenoo wiilashaadii maya oo waxay ku jawaabto garan mayso oo de waxay diidaysaa ereyga odhanaya dee ma arag oo ma joogaanoo waa kaasoo way tuureenoo way dayriyeen waa kaas waa kaas. weli iyagii bay asturaysaayoo ceebtooda qarinaysaayoo kama jawaabto markay inamadaadii maya.
markii aad kaysan weyday su-aasha ay maanta dabadii la kulli warkaaga boqolkiiba boqol waa la hayaa maanta haddaba islaamahan dariska ah kugu laga hadlaya runta u sheeg markaa maanta daba shaahu kariso way isugu yeer waxay dhageysta madaxweyne la baxday waa sheegay afartii magacaan idin sheegay laakiin markii ay ka quusatay magacyada ka soo horjeeda oo xun bay u bixisay kay dumarkii shaahiye waxay ku yidhi dhageysta tib dhalay tib mooye dhalay madalooti dhalay sii muuqday aan waxba la sii muuqan dhalay goblan wiila lagu falaanahay bayt goblan wiilashii mahad iyo guuleed iyo la baxay waa tib iyo mooye iyo madalooti iyo waxyaaba cajiiba oo dee maaragtay waxaa ka keenay murugada marka waxay tidhi ilmadeydii waa kuwaas halkaasay uga baxeen dib uma arkin hadday mahad ahaayeen iyo hadday guuleed ahaayeen iyo hadday asad ahaayeen maanta ima aha magacyadaasaan u bixiyey alleeyi hadduu leeyahay haddaba warkayga warkii u dambeeya idinka sii ilmadeydii mar dambe dee hayla soo hadal qaadina marka calaa kulli xaal ninkii baanu ballanay maantii dambaanu gurigeeni goortu hura kor casara islaantii oo gabowday oo aqalku waa dam daaqadu waa xiran yihiin oo dhaqdhaqaaq ma jiro nololi ma jirto islaantii way soo kacday oo albaabkii bay naga furtay ninka ila socday garanaysay meeshay keenay waanu fadhiisanay cabaar oo bal intaan hadalba bilaabin islaantii baanu balma aragtay cabaar eegayo dhowreyo waalsi bal horta xaaladda ay ku sugan tahay hadalku ha dambeeyo korka bal hubi ilaa hadiyo goor dareen ka jira qofka wejigiisu ka muuqda iyo korkiisa marka markii dambaan u gedbaxno loo afbaxay oo ninkii baa kuyii ninkan ma garanaysa maya bay ku tiri uu ii sheeg waxay tiri wuxuu ku yidhi ninka magacaale ma taqaano waxay tiri waan maqlay bay tiri waxaan u soconno iyadu dee ma malayn kartee wuxuu ninkan idee warkuu helayoo inamadaadii ku dayriyeen oo ka dhaqaaqayn buu ayaa maaragtay warkaasuu helay kadibna bal wuxuu jeclaystay inuu ku yimaado ku arko oo afkaaga ka qaado inamadaadi inaad goblan ka tahay mid waliba markuu baxay gabadh buu iska samaystay saaxiibadiisa oo da-diisa oo laysla lumay oo khalaas halkaasay marayeen waqtiga dee maaragtay dhalinyaradu ay dee fudayd baa iska jira dhalinyaranimadu fudayd bay leedahay waa marka ay balwadooda iyo hadii ay ka dhigo arrimahoodaas ay u baydhaan marka anigii baa afbaxo waxaan ku yidhi de magacayga waa kaa ninku kuu sheegay anigu su-aal baan kuugu yimi ninkaadi war buu ii sheegay odhanaya inaad 4 wiil dhashay oo 4tii midna aanad maanta gacanta ku hayno mid walba maalintii uu maalinkan maanta madaxana qaad noqday albaabka ka baxay islaantii way naxday waxaa ka naxiyey ilayn hoogaaga meel walba warkaagu waa yaallaa oo ma ay jeclayn in dee maanta hooggeeda la ogaado marka waxaan ku yidhi soo ma jiraano barbaamse waxay tii haya waa jiraan maxaa jiro waxaa jira dee warkaasaan helo waxaa lay sheegay inaanad goblan ahayn inaad 4 inan dhasho 4tii midna maanta aanad gacanta ku hayn siday u dhaqaale dib kuugu soo noqon xaqaagii ku siin ku soo salaamin xataa telefoonka kula soo hadlin marka arrintaas baan hubinayayo waxaan is iri hadday run tahay bal waxaad isku daydaa islaantaas sidii inamadeedaasi ugu soo noqon lahaayeen sababtii way sii yaabta waxay tiri hooyo inamadeeda beed adigu soo celin karaysa waxaan isku dayayaa inaan sameeyo tab ay ku soo noqdaan way ogaatay marka intee la ogaaday arrinteeda waxay tiri waxaan ku yidhi waxay u qaadatay inaan ka hadlayo xoolo iyo waxaasoo waxay tiri hooyo dee waa ilaahay mahadiyo waan iska noolaho imanka wax badanba iga degi maayaani iyagu ma jeclaa inaan arko oo ku yildoogsado oo dee ay cabaar agtay halka yimaadaan oo cabaar halkaa fadhiyaan intaasaaba dee aan ku noolaan lahaa marka waxaan ku yidhi calaa kulli xaal aan marka soo koobeen way iska dhacay daradaas way dhacday lakin waxaan isku dayay inamadaada inay ku soo noqdaan haddana way sii yabta waxay tiri oo sidee bay usoo noqonayaan waxaan idhi ulku soo kaxayn maaye markaa warka afkaaga ka qaado gabay baan tirinayaa maaso hal abuur baan maasaan tirinayaa
casharadaha lagu duubaya dadkaa la dhexgelinaya maasadu way faafaysaa waa la dhegaysanayaa marka la dhegaysto mujtamacu wuu isweydiinayaa ciddan laga hadlayo islaantan iyo wiilasha dabeetana gabaygu wuxuu sheegayaa sababta keentay gabaygan in islaantii ubadkeedii ay islaa yihiin dabeed markay taasi dhacdo inamadii waa la takoorayaa meel walba waxaa loonayaa waa la baranayaa horta waa la raadinayaa oo dadku saasuu leey war horta kuwan nin walba wuxuu doonaa inamada la sheegayo inuu arko markuu arkana mujtamaca meesha joogaa wuu goynayaa wuxuu odhanayaa haddii abu mafrash yimaado siaado ku qayro siaado hadal balukaada adigu hadalba kuma furee yaa la odhanayaayo waxaa laga suunaxayaa ogaanaya warkiisa lahayo dabeedna markay meel ay galaan waayaan ayay iyagu insha allahu tacaala anigu soo celin maayo ilaahay baa dee kusoo sakhiraye laakiin aniguna kaalin baan ka qaadanaya haddii ilaahay ka dhigo maaragtay ubadkaaga inay kuusoo xaq baad ku leedahay oo iyaga qudhooda halis bay ku jiraan mar haddii xaqii aad ku lahayd daba socdo xaqa waalidka waliba ka hooyadu waa mid halisa waa mid halisa oo aan laga badbaadi karin marka xaq baad ku leedahay anigu waxaan u jeedaa iyaga badbaadadooda iyo adiga badbaadadaadii masadaasan tirinaya dadkay gaadhaysa waa la isweydiinayaa marka la helo waa la goynayaa haddii la dolo gabayaa loo tirinaya waa la maagaya salaadku way jeceshahay inamadeed inay soo noqdaan laakiin haddana waxay ka yar biyo diiday inay inamadeedii dacwad ku noqoto arrintaasi hadaba finally waxay tii barhooy dadku waxay mayna hunguri ku dilaye dee bal soo sameeyo bal hadda iga ilaali wixii haddii ay ka dhigo ay mashkalad iyo ceebi iga imanayso marka tiibaan ballan ka qaaday dabeedna maasadeen anuunbaa hooyadaa ayaan tiriyey maase kooban laakiin aada u culus ereyada ayaa islaantu aada u culus markaa dabadeedna casharad baa lagu duway marka hore way sii faaftay casharadaa lagu duway way faaftay meel walba way ka dhacday magaaladii London dabeedna warkii waa la iskala bixiyey dabeedna nimankii waa la bartay dabeedna nimadii oo dee xaragoona isqalloocinayaa mid bafar soo galaayo markuu dee si hadal baa loo leeyahay dhegeyso waxba ha noo sheegin annaga hooyadaa u sheeg waxda naga noo sheegayso laa xawla walaa quwata marin waliba inamadii waa ka xidhmay dabeedna waxa uu iska qadarantay waqti aan fogay badnayn ka bacdi inay afartiyo wada socdaa gurigii yimaadeen albaabkii garaaceen inay islaantii u yimaadeen sheeka ka yar horeysay waxaa la yidhi waddanka hindiya waxaa ka jiray inan ay hooyo dhashay oo aabahii dhintay oo aan ehel kale lahayn sheekadan meel ka soo gelaya yacni waa isagii hooyadii isagoo wakiilkiiyo kaasay ku tacabtayoo ku daashayoo haddana ay ka dhigo ku ildoogsataa dabeed markuu hana qaaday dee barbaarka noqday baa dareen kalaa gelayo hunguri baa gelayo hablaa gelayo gurigii saxaradiisa lagu maray wuu ka hawoonayaa meel gogol wanaagsan oo nadiif taal buu doonayaa waxa qaaq iska jira waxaasoo dhan marka inankii markuu hana qaad noqday iyo maalmaha kamid a gabadh bay isbarteen oo gabadhiiba aada u jeclaaday gabadh libaaxada u jeclaadayoo gabadhiiba uu yidhi markaa aynu isguursano gabadhii waxaan markaa iyada laga filayn oo aan looga fadhiyin bay la timiyo waxay tiri haddii aad doonayso inaynu isguursano horadoo hooyada wadnaheeda ii keen yacni waa isagay intixaamaysa isagay tijaabinaysa isagay balad hundo ogaanaysaa waxa uu yahay dee qolli qof malaha bani aadam oo karaamada ma yidhaahdeen hooyadii wadnaheedaan kuu keenay lakiin isaga wuxuu yidhi markii ay ku xidhay hooyadii wadnaheeda maba fakirinaya wuxuu yidhi mataasadii ku xidhay haa waa fulinaya waad la kaalay bay tiri inankii dee qof meel u caddaay midaka madow siduu usoo ordayay isla hooyadii u yimi hooyo sidii wax kale uga dhowraysay hooyo wadnahaaga ii soo bixi hooyadii way yaabtay way aamustay after some time waqti ka bacdi ay ku tiri hooyo wadnaha maxaad ku falaysaa wadnahayga dee wada cayaar ba iska moodayo ka yar warwareejisay mar meel saato dee waa nin meel u cad tahay halkaasi ka hooya wadnahaan doonaya aqri dambe waxay tiri makaar baa wadnahaygaa doonaysaa maxaad ku falaysaa
gabadhaan jeclaaday ayaa igu xidhay wadnahaaga makaa dhabbaa wuxuu yidhi waa u dhaartay inay ka dhab tahay waxay ogaatay inaanay waxba dhalin ay goblan tahay ayay ogaatay markaa ifka isaga unbay u joogtaaye iyadu haddii lay ka dhigo ujeedo kale nolosha ka leedahay ma jirto marka waxay tii hooyo intay soo kacday oo midi soo qaatay ayay tiri halkaa jeexo wadnaa la soo bax wadnaa weli ma rumaysna dee in waxa ay run yihiin soo kacay halkaasuu ku dhuftay dabadeetna adigu wadnihiibu la soo baxay dibadda u soo saaro dabadeed garkiibu jaray halkii bay ku dhacdo iyado halkii bay ku naftay halkii bay ku baxday wadnihii oo dhigsaa uga daayo ayuu la durduriyey speedkii iyo xooggii uu ku ordayey ayuu kufay intaanu gabadhii gaadhino dabeedna wadnihii halkaas oo kale uu ku duulayo dabeedna wadnihii baa la hadlayo wuxuu ku yidhi wadnihii hooyadii hooyo waxma ku gaadhin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun iyadoo dhimatay ayaa wadnaheedii hadlayoo ay ka naxaysaa kufitaa yarba inay wax gaadheen isna waa ka wadnaheedii gabadha ka iibinaya haduu boorkii intuu iska tumay buu la durduriyo inantii meel fadhiday wuxuu yidhi iga qabo adiyadii inantii bay qabada waxay ku tiri saas bay ogtoortay waa maxay waxba markaas dee waa wadnihii hooyada adii tirtay waad bay saa ogto waxay aragtay dee inaanu naf lahayn waxay tii waa dhegeyso waxaad yeeshaa sheekhallow kadinka ka bax dibna ha igu soo noqon yani ninkii saasuu hooyadiina u waayey gabadhii wadna u dhintay hooyadii u dilayna u waayey oo xaaladahaasaa dhaca marka maaragtay xaqu waa caynka marka calaa kulli xaal islaantii waa loo inamadii waa u yimaadeen dabadeedna waa dul degeen dabadeetana wixii waajibaadku ahaa ee dib uga dhacay ee ay la baxsadeen ayay markan iyadoo cada hadii ay ka dhigo maanta hareera fadhiisteenoo gurigii markaa iftiinkii kusoo noqday iyaduna waxba ma rabta inay ku iltoogsato marba aragto bay doonayso markan waa cadow wax ka degayaaba ma jiraan laakiin afeef bay islaantu markii aan anigu warramay ay ii fasaxaysay inaan gabayga tiri waxay tiri balhooy waxaad uniga ilaalisaa inamada inaanan hunguri ku dilayno maaragtay waxay shidaya ka dhigo gabaygan usoo baxay aanu hunguri ahayn waxaan idhi taasi ma jirto wallay kaa tahay ballankaasaan kaga yimi mansadaasaan tiriyey mansadii way faafto dadka o dhan bay gaadho dabeetna waatan keentay inay guriga inamadii kusoo noqdaan mansadi waxay odhanaysaa hunguri calaf baa xukumaa hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal waxay ka afeefanaysaa hunguriga ay tiri iga ilaali inaan hunguri ku maagay ayaan loo qaadan dadkana hidihiisa guud waa dhaqan umadu leedahay dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal xaqiyo halbuuxintiisa habboonkiiyo waalidkiisa hilbiyo ku arooridooda siduu uga hawl yaraysto halmaal laga yeeli maayo yacni tacabka laga soo maro iyo sida uu marka dambe wixii ku tabcay u ilaawo dee laga yeeli maayo ubadka laga yeeli maayo hawiyatu waxay og tahay inay gabdho samaysteen oo nin waliba gabadh la saaxiibayo uu gogol codsiifo halkaa ku badjeynayo ku qayalayo oo uu hooyo kale samaystay hawiyatu mashoy dhashayda ka daa gacan haadiskaaga aad iga yeedhanayso barbaar hanaqaad ku leexday duciya habar qaadan waayey dhir iyo heeguu noqdaa hadhaysay dhulaan aqoondhe hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldhaa jecel baa u qaybsan haldhaa waxaa la yihahdaa goriga ninka ah marka aada buu qurux badan yahay haldhaagu marka inanku markuu hana qaaday qurux la kaco dee mid sidiisa oo la da-ahoo dee quruxdaas jecel ayaan waayayno dee ay isla lumaan haldhaa jecel baa u qaybsan oo ka marorsata dadkii dhalay inaan hadlo maan sugaynin waa hooyo sodohahoo dadkii hore ah inaan hadlo maan sugaynin baxnaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hoggeed iyo xaajadayda dareenka haroosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaan ka fogaaday baa leh maan jeclayn inaan hadlo laakiin maanta yani runtaa iga hadlisay
ها وقيدي حاجة إذا دريك هلوسي سوكي سنة كقضايا كفوقادي بالي ما كان عدله هي الكواي كان عدله هي الكواي نفتي إذا حلال هالكيدة على الكيدة وحان هدو واي الشيبو هانتي لولا تاي دقيسو وقبل أو لا صاحبه يقومش أو تفاي كاليسا هانتي لولا تاي دقيسو هانتي لولا تاي دقيسو هو بان تاكتا تالا إنك أقوى فرديا hadhiinadu baadi weeye aduu baadi buu kugu yahay hashii korisaa u ciilan qofaad halab saariti waxay xusuusatay markaa wixii ka soo maray qofaad halab saaritiisa daryeelka horseedadiisa dadaalada heensihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar kuu banneeyo daraarku haleeli waayo hortaada waxaa yimaada sidaad ugu heelanayde haraad iyo waa kalkiisi hilaa baxayow dhagayso siday tala kaaga hoostay waxay ka dhigtay iyadoo haraad hayo haraad aada haraad u liidata oo hareeraheedaana bahal hilaaci wacdaa ka hayo aan gaadi karayn oo kasoo cabi karin inamadii bay hilaac ka dhigtay iyo roob ay u baahan tahay oo u haraadan tahay laakiin aanay gaadi karin iminkay taxaysaa haddaba intii murtida lahayd calooshu intay ku hoysay hiyigu ku baxnaaninayay horaadka intaad shaqaysay dhabtaydu intay ku haysay intaad huwaray taftayda hobayda intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuud iyo gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahaaga honka ay xusuusinaysa hayaydana meel shishaale hilowga naftaa aloosan kalgacalka ay u qabto ka shaahinqanaysa goorba hanka ay waraysanaya talow hebelmee ku foogan waxay ka aamusooda qalbigeeda oo inamadaadii ma hebelmee aniga hirashaa isweynay higsiga nolosha adkaaday adduuniya hibsigiisa hangoolliidaan ku daayay yani iyadu waxay u noqon lahayn hangoolkii ay muraadada maanta ku qusan lahayd ayay inamadu u ahaayeen laakiin iminka waxba ma qabsan karo hangoolkii ayaa ka maqan hangoolliidaan ku daayay waxaan ku hagaagi waayey dhankaad ku hagaagsanayde adoo ka hanweyn xaggayga qof kuuga hanweyn dhantiisa ciddaad ku hadlaysay mooye halyeynimadaada sheelan habowgiiyo dhiirintiisa ayaan halis kuu tusayne intaan kugu hawla daalay intaan kugu hooda sheegtay intaan kugu hooda sheegtay intaan heblo kuugu faanay hilaado fog bay lahayde inaad hafarkaaga qaato sidaad ku heshaa da-weyne adiyo habigaaga mooye waa adigiyo caqligaaga habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo huqbaase ku raadinaysa subxaan hibaaq xalan maad ahayne hufnaanta dhibtii abuurtay dhibta yani quruxdaa cidda waxaa ku yeelay dee tacabkaygiiye hufnaanta dhibtii abuurtay inaanay hadayn yaqiinso hawaale aada duurabaa og dadkuna kala hooda weeye hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow hoos iyo sare tii ku raacda anunba hooyadaaya halkaa markay maraysay ayay tidhi haddana waa hooye habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay haddaba ninkii sidaa u galay habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay hadhow iyo tii hadhow hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow hoos iyo sare tii ku raacda anubaa hooyada ama cirka tag ama dhulka tag laakiin hooyada ku dhashay waa aniga marka uma socoto hooyadaas hooyo kastoo dayacan iyo hooyo kastoo ubadkeedii aanay xaqeedii siin aabuhu macna ma laha hooyada waalidka runtii waa hooyada waxay u socotaa hooyo kastoo dayacan oo ubadkeeda imaka waxay u dhacaysaa taasi dee waa sheekadaasi dhacday laakiin haddaba qaar kuwa sidaas ama sidaa ku dhowaa jire bal iminka casharada waxaynu ugu duubaynaa
wixii arrintaa la xidhiidha sidaasay haddii ay ka dhigo baalkan maanta maaragtay dee waddanka jooga dee inay xusuusiso hooyada waxay tahay. Wassalaamu calaykum.